kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa xafiiska wararka telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho kusoo dhawaada wararkii Soomaalida iyo caalamka waxaan ahay Cabdulqaadir Umar Cabdulla idin waramaya qodobada ugu waaweyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kumanaan shacabka reer Muqdisho goob fagaaraha kaga qayb galay munaasabadda xuska 1 Luulyo ayaa sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay in ay soo celiso wadahadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya telefishinka Soomaali Cable ayaa booqday isbitaal ay ku jiraan dad ku dhaawacmay hoobiyaal lagu soo tuuray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaaliya ayaa si weyn loogu xusay munaasabadda xuska 1 Luulyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo garoonka Stadium Banaadir kaga qayb galay munaasabadda xuska 1 Luulyo isla markaasina la hadlay telefishinka Soomaali Cable ayaa ka hadlay maalinta 1 Luulyo oo ah maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed magaalada Baydhabo waxaa si weyn loogu xusay 1 Luulyo oo ah markii koonfurta Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystigii Talyaaniga isla markaasina ay midoobeen gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya magaalada Cabudwaaqna waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina loogu dabaaldegayay 58 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystigii Talyaaniga sidoo kale magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ee maamulka Hirshabeellana waxaa lagu qabtay munaasabado lagu weyneynayay xuska 1 Luulyo waa 58 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystigii Talyaaniga isla markaasina ay midoobeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya wararka ka baxsan Soomaalida ee la xiriira caalamka isla markaasina ku daawan doontaan warkanaga waxaa kamid ah dawladda Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay inay hakinayso dagaalada ka dhanka Xuutiyiinta dad badan oo ku dhintay qarax ka dhacay dalka Afghanistan iyo hogaamiyaasha qaaradda Afrika oo ku shiraya dalka Mauritania isla markaasina ka arinsanaya badqabka qaaradda iyo ganacsiga xurta ah qodobadaasi iyo kuwa kale la xiriira Soomaalida iyo caalamka ayaad ku daawan doontaan warkanaga haddii Allah awoodda laga helo hay'ashee sidii caadiga ahaydba faafahinta wararkaasi iyo idil waxa ka horeynaya qadar yar oo adeega bulshada isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal mar kale magacaygu waa Cabdulqaadir Umar Cabdulla una diyaar garooba faafahinta wararkii oo dhan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kumanaan shacabka reer Muqdisho goob fagaaraha kaga qayb galay xuska 1 Luulyo ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay soo celiyaan wadahadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya wariyahayaga Sayna Maxamed Aadan oo goobta ku sugnayd ayaa warkan ku eegaysa dadka ku sugan Muqdisho ayaa saakay aroortii isugu yimid garoonka kubadda cagta ee Kooni si ay uga qayb qaataan dabaaldega xuska munaasabadda 1 Luulyo oo ah markii gobolada koonfureed ee gumeystigii Talyaaniga ka xoroobeen isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfureed isku soo baxa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xildhibaano wasiiro saraakiisha ciidamada mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir kooxda Baanbeyda gobolada Waabari ayaa isku soo baxa ka qaaday heeso lagu soo xasuusinayo dadka qiimaha ay u leedahay 1 Luulyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay dadkii ka soo qayb galay isku soo baxa ayaa ugu horeyn hambalyo ku aadan 1 Luulyo jeediyay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa uuna madaxweynaha ka sheekeeyay muhiimadda ay dadka Soomaaliyeed u leedahay maalmaha xurriyadda in Soomaali ay midowdo 1 Juulaay oo maanta ah oo aan ka joogno 58 sano waxaa guushaas ka leh oo loo baahay in la xasuusto shacabka Soomaaliyeed oo labadaas fakarkii gumaysiga diiday fakarkii xornimo doon kala qaatay
oo ahaa soomaalinimo iyo qab soomaali qaatay. maanta aan joogno waxaan taagannahay meeshii ay taagnaayeen dadkii xorriyadda noo keenay. maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannahay oo loo baahan yahay xaaladda aan ku jirno oo aad iyo aad xaaladda aan ku jirno oo marxaladda adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dagaalada soo laabtay ee ka socda deegaanka Tuqarraq waxa uuna codsaday in si degdeg ah dagaaladaasi loo joojiyo. waxaan leeyahay arrimaha Tuqarraq ka socda ee dadka Soomaaliyeed ee dhiigooda macnaha ku daadinayo hala joojiyo. waxa ku dhimanaya wiil Soomaaliyeed, waxa ku dhaawacmaya wiil Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed ayaa ku dablamaysa. hala joojiyo. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale Somaliland ka dalbaday in la soo celiyo wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo Somaliland. waa dad walaalaheena ah, duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyey. dawladdan diyaar waxay u tahay inay wada hadaladii soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto. Soomaali kala maaranto waa dad walaal, waa dad isku dad ah, waa dad wax walba wadaaga. inaan ummadda Soomaali isku soo celino oo isku soo dunno oo walaalino yaa qof walba oo Soomaali ah iyo mas'uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay. aniga ugu horeeya oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo dawladdeeda diyaar waxaan u nahay inaan soo celino wada hadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karno waalahayn aan ku gelin maxaa yeelay waa gacannaga maqan, waa garabnaga maqan weeye. guud ahaan gobolada dalka iyo wadamada ay ku sugan yihiin Soomaalida ayaa si weyn looga xusay munaasabada 1 Luulyo. Zainab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. telefishinka Somali Cable ayaa booqday isbitaal ay ku jiraan dad ku dhaawacmay hoobiyaal lagu soo tuuray qaar ka mid ah xaafada ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. wariyahayaga magaalada Muqdisho Maxamed Cismaan Daahiye oo isbitaalka dadkaasi ku booqday ayaa warkan inoo diyaariyay. daryanka madaafiic qasaare geysatay ayaa mar qura laga dareemay xaafada Xalan ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. madaafiicdan oo aan la garanayn halka laga soo riday ayaa waxa ay gaarsiiyeen qasaare kala duwan dadkii ku dhaqnaa xaafada. dhimashada 3 ruux ilaa 10 iyo dhowr qof oo dhaawac ah ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. waxaan booqasho ku tagnay isbitaalka guud ee Madiina ayadoona halka aan kula kulannay bukaanadii ay wax ka soo gaareen dhacdadii maanta ka dhacday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dhacdadan oo ahayd dhacdo xanuun badan ayaa waxa ay qasaare gaarsiiyeen qoysas kala duwan oo ku dhaqnaa xaafada Xalan ee degmada Wadajir. isbitaalka kolkii aan gaarnay ayaan la kulannay madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Cabduqaadir Macalin Xuseen. bukaamadii maanta ka istaamadeyn ahaan la soo gaaray waxyaalihii magaalada ka dhacay. anaga waxaan soo gaaray guud ahaan 13 qof oo bukaanaan loo keenay. 6 qof oo kamid ah bukaamadaasi adeeg caafimaad ay u baahnayeen oo u fulinay xaaladooda maadaama ay fiicnaayeen outpatient ahaayeen guriyadooda u noqdeen. 7 qof oo kamid ah waa seexinay oo isbitaalka ayaan seexinay. haddana waxay noo jiifaan isbitaalka hawlaha caafimaad ay u baahnayeen oo u fulinay. inkastoo 2 qof oo kamid ah saalada la geeyay oo qalimo culus ay mareen haddana xaaladooda aad u fiican yihiin. waa gartay wax dhimasho miyaa jira? 1 qof ayaa isbitaalka nooga dhintay oo jiradii loo keenay ama dhibaatadii dhaawac soo gaaray oo noogu yimid awgiis sabab u noqotay isbitaalka gudihiisa ku dhintay. wax kale waa noo fiican yihiin dadkoodii laakiin ilaa hadda waxa ugu daran ee soo gaaray waa qoys la sheegay inay maaragtay dhibaato si gaar ah ugu dhacday oo qaar kamid ah meesha ay ku dhinteen. 1 qof oo kale oo kamid ah oo meesha ku dhintay. 2 qof oo kalena ay wali isbitaalka noo jiifaan. sida inta kale xaaladooda okay waa gartay dadka la celiyay xaaladooda miyay aad u sahlan? waa fiicnaayeen dhaawacyo fudud ay qabeen waxay u baahnayeen u sameynay way noqdeen. waa gartay kuwa imika jiifa ka waran hadda waqtigan aad u fiican yahay xaaladooda. waa loo dadaalay dhaqaatiirta si fiican ay ugu adeegeen waana loo guuleystay. aadan u fiican yahay bukaamadaas. waxaan rajaynaynaa in ay noo kacaan oo noo caafimaadaan insha Allah. dhacdadan oo ahayd dhacdo xanuun badan
ayaa dadka kala duwan ee degan xaafadda si gaara u taabatay magaalada Muqdisho mararka qaar waxaa dhacda duqeyn aan la garanayn meel laga soo tuuray madaafiic oo ku habsata dadyowga kala duwan ee ku dhaqan deegaanada kala gedisan iyo degmooyinka kala gedisan ee gobolka Banaadir waa dhacdo xanuun badan oo soo gaartay dadka reer Wadajir Maxamed Cismaan Daahiye telefishinka Somali Cable isbitaalka guud ee Madiina qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ka qayb galay munaasabadda xuska 1 Luulyo isla markaasina la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan maalintan ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee 1 Luulyo wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Catoosh ayaa faahfaahinta warkan eegaya iyadoo magaalada caasimadda ee Muqdisho qaybaha kala duwan ee gobolada dalka iyo waliba meelaha Soomaalida ay kaga sugan yihiin guud ahaan caalamka tan ilaa xalay si weyn looga xuseeyay maalinta 1 Luulyo ku astaysan waqtigii xornimada ay ka qaateen gobolada Koonfureed ee dalka gumeystii Talyaaniga ay midoobeen gobolada waqooyi ee Koonfurta Soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad si weyn loogu dabaaldegayay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka koobaad arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir aynu kula kulanay garoonka Banaadir Stadium oo ay ka dhacaysay munaasabad si weyn loogu xuseeyay maalinta 1 Luulyo ayaa inala wadaagay dareenkooda ku aadan sidee u arkaan maalintani 1 Luulyo waa maalinta ummadda Soomaaliyeed ee xorowday waa maalinta calanka Soomaaliya la saaray waa maalinta labada gobol ee midoobeen waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ee joogto waxaan leeyahay maanta waa maalintii ugu weyneed Soomaaliya taariikhdan ee ku lahayd raggii halgamayaasha ahaa dhaliyay calankeena in la taago allaha u wada naxariisto waxaan leeyahay calankaaneeti dheedheel laguma keenin waxaa lagu keenay hanti iyo dhiiga loo huray waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladda maanta u taagan oo u horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay dawladoodii ay xoojiyaan ee dawladoodii ay gacmo bir ku qabsadaan السلام عليكم همبليو كودا لوليا حرمة الصومالية كسورة كونتري ستيت سنة وهمبليين إن عمودة الصوماليات وعن كسورنا جرون كستيدي كونيس وكويا لدقمة عبد العزيز ماشان وحا حتى كقطبي وقطبات دير وقيمة له وشرف كرامة له كسو جدي مدحونها عمودة الصوماليات مدحونا محمد عبد الله فرماجو وعسيدو كلو ماشي يمد واسغنا رئيس وزراها قرنka Soomaaliya xildhibaano wasiiro ummadda Soomaaliyeed 7 degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir safiiro ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxay u dabaaldegayeen toddobaadkii xorriyadda oo ay maanta ay ku ekeedii caawa ay ku ekaan doonto aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa degmada Cabdilcasiis inuu aan martigelino toddobaadkii xorriyadda maalintii u dambeysay aan halka ku martigelino madaxweynaha iyo jamhuuriyadda dalka iyo ummadda Soomaaliyeedba si nabadna ay ku dhamaatay hambalyadan leeyahay dhamaantiin ummadda Soomaaliyeed 1 Luulyo xorriyadda Soomaalida maanta waa maalin weyn waa 1 Luulyo xoroobeen gobolada Koonfureed iyo madowgii labada gobol maanta waa maalin aan la qiyaasi karin dareenkeena aad iyo aad aan u faraxsanahay abaabulka iyo quruxda iyo fantasiyaha ka dhaxayna wax la soo koobi kara ma ahan gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka gobolka Banaadir degmooyinka dhammaan waxa la sameeyay waxaan la soo koobi karin oo qurux badan abaabul qurux badan maanta maxay ahayd ishaag waxa ka dhacay meeshan waxa aad iyo aad loogu farxo waa maalin ugu weyn waa maalin qalbteena ku weyn waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtaan meel kasta oo dunida ay ka joogaan gobolka Banaadir maxaan ku iraahdaa degmooyinka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waa 1 Luulyo oo ah maalin aad iyo aad noogu weyn hambalyaan leeyahay mar labaad dhanka kale qaar ka mid ah kumanaankii shacabka ah ay maanta ka soo qayb galay munaasabadii ka dhacday garoonka Banaadir Stadium oo iyaguna la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa inala wadaagay dareenkooda maalin ka duwan maalmihii hore waa 1 Luulyo intaan noolaa waa maalinta ugu horeysa wadannimo dareema waxa leeyahay Soomaalida dhan Eid Mubarak maanta waa maalin weyn maanta bye lanaanaye 60kii lugooyadii nadaysaye 1 Luulyo laba midumba hambalyo shacabkayga iyo madaxdeeda maalinta xorriyadda aad baa idin hambalyeynaa dhamaantiin dhalinyarada maanta meesha iskugu imaaday madaxda sharafta leh aad baan u hambalyeynaa maanta dhalinyarada maanta waa mustaqbalka bari waa madaxda berito 1 Luulyo hambalyo shacabka iyo madaxdeeda
jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna maalintii midowga labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta runtii farxadeeda maanta ma soo koobi karo farxad aad u weyn baan dareemayaa waxaan u hambalyeynaya dhammaan shacbiga weyn Soomaaliyeed gudaha iyo dibadba ay joogaan shacbiga Soomaaliyeed markii waxaan halkan ka salaamahay qaranka Soomaaliyeed ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo madalkan goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya dhammaan safiirada beesha caalamka kala socday iyo ciidanka qalabka sida qaybooda kala duwan iyo shacbiga Soomaaliyeed oo xalay iyo shalay iyo maanta u taagnaa inay ka qayb qaataan u dabaaldegaan xorriyaddii Soomaaliya ay qaaday sanadii 1990 shacabka dareenkooda taas wax weyn ah waxa sawirka bixi karana waa TV-yada iyo dadka ka shaqeeya wariyaasha waxaan dhahayna waa maasantihiin dhallinyaradana hala dhiirigeliyo qof walba bini aadan oo wax qabad leh waxaan ku rajaynaynaa inaan dhiirigelin hadaan dhalinyarada Soomaaliyeed guul iyo gobonimo ummadda Soomaaliyeed hambalyo 1960kii maanta oo kale ay ahayd markii xornimada ay qaateen gobolada koonfureed ee dalka kuwaas oo iska feeday heeryadii gumeystaha Talyaaniga iyadoo ay xusid mudan tahay isla maalintaas inay midoobeen gobolada waqooyi koonfurta Soomaaliya Abdullahi Ahmed Atoosh Somali Cable Muqdisho magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay isla markaasina lagu dabaaldegayay 1 Luulyo 58 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga wariyahayaga magaalada Istanbul Iqra Abdullahi Raage Iqraladan ayaa warkan inoo soo dirtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxay u aheeday habeen aad u qiimo badan waxayna u dabaaldegayeen maamuuska loo sameeyay munaasabada habeenka xorriyadda 1 Luulyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wadanka Turkiga sida ganacsatada ardayda waxgaradka ayaa goobjoog ka ahaa barnaamijka waxaana sidoo kale goobta ku sugnaa xildhibaanad Caasho Koos taliyihii hore ee nabad sugidda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Tuuryare gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ugu horeyn waxaa munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga mudane Sheekh Maxamed marka walaalayaal caawa waxay noo tahay farxad weyn maalin weyn oo mudan in la xasuusto waxaan soo marnay 27 Juun oo ahayd maalintii ay xorriyadda qaateen walaaleen reer Jabuuti ahlan wa sahlan ayaa leenahay waxaan soo marnay 26 Juun oo ahayd maalintii gobolada maaragtay waqooyi galbeed ay qaateen xorriyadda caawa waxaan u taaganahay 1 Luulyo ayaan u taaganahay oo ah maalintii ay xorriyadda ay qaateen gobolada koonfureed jawga goobta aad ayuu u qurux badnaa qof walbana wuxuu niyadda ku hayay isla markaana uu xasuusanayay geesiyaashii xorriyadda dhaliyay Jenaraal Cabdiraxmaan Tuuryare waa taliyihii hore ee nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya xornimada waxaa loo soo maray dad badan oo jiil ah oo dhalinyaro ah oo qaarkood arday yihiin qaarkood dad dhalinyaro ay yihiin ayaa ka dhiidhiyay in Soomaaliya aysan magac lahayn aysan calan lahayn aysan dad jir ahayn waa dhiidhiyeen way halgameen ayagoo kaashanaya shacabkoodii iyo ummaddii markaa la nooleed waxay soo dhiciyeen xorriyadda calankii ay keeneen dowladnimada ay keeneen meelo kala duwan ee dhalinyarada iska abaabuleen waqooyi waxaa iska abaabulan dhalinyaro 26 Juun ayay xornimadii keeneen koonfurna waxaa iska abaabulay dhalinyaro SYL ayaguna kowdii ay keeneen xildhibaanad Caasho Koos ayaa ku dheeraatay ahmiyadda maalinta 1 Luulyo ayadoona dardaaran u jeedisay dhalinyarada Soomaaliyeed waa markii ay gobolada koonfureed rideen gumaysigii Talyaaniga heeryadiisii waqooyi oo 4 cisho joogtaana calankii ay keentay ay midoobeen labada gobol waa dharaarku lahaa Cabdilaahi Suldaan Timacadde sareeyo uma nusqaamo aan siduu yahay eege kaana siibka nasaa
iyo kii dhabarka lagu siday ee ahaa kuwii yaryaraa ee ka horreeyey xorriyaddii ee markaa la siday. ugu dambeyn waxaa munaasabadan lagu xuseeyay maalinta 1 Luulyo soo gabagabeeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. waxaan u maleynayaa intii hadal ahayd inta badan waa la yiri laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo maadaama lagu jiro isbuuca xurriyadda oo 26 Juun aan soo marnay iyo sidoo kale 27 ayadana Juun oo ahayd maalintii walaalaheena Hiil Walaal ee Djibouti oo aan leeyahay Djibouti jiro waliga ha joogsan. sidaa darteed waxaan rabaa maanta inaan qayb yar ka taabanno munaasabadda 1 Luulyo 58 guuradii ka soo wareegatay maalintii aynu xorriyadda qaadanay isla markaana ku astaysan maalintii midnimada Soomaaliyeed. waxaan si sharaf iyo farxad leh ugu hambaleynayaa damaashaadkana la wadaagayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, mid xanuunsan, mid caafimaad qaba, mid fog iyo mid dhowba. meel kasta oo ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay ku damaashaada nabadgelyo, barwaaqo, bashbash iyo nolol wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay helaan. aan u damaashaadno inagoo xusuusanayno noloshii ceesho milixa ahayd ee ummadda Soomaaliyeed dhaqanka u ahayd wadajir iyo isdhexgal farxad ku dheehan tahay aan caawa ugu dabaaldegno maalintii aynu jamhuuriyadda Soomaaliyeed aynu noqonnay jamhuuriyadda Soomaaliyeed. waxaan si gaar ah ugu hambaleynayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, u soo dhaawacantay, u dhibtootay, u geeriyootay ilaalinta iyo adeegista difaaca qaranka, kuwaas oo ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka. waxaad mudan tihiin taalooyin in la idin dhiso. ciidamada qalabka sida dableyda, alifleyda iyo saraakiisha sarsare meel kasta oo ay joogaan oo ay ku jiraan kuwa furimaha dagaalka jooga ee maalin walba diyaar ugu ah in laga difaacaan cadowga, iyo sidoo kale kuwa geeriyooday iyo qoysaskooda. waxaan dhammaan leeyahay abaalkiina ma iloobi doono. ummadda Soomaaliyeedna waxay mar walba xusuusnaan doontaa naftii aad u hurteen, dhiiggii aad u hurteen, maalkii aad u hurteen iyo geesinimada aad ku difaacdeen sharafka iyo qaranimada Soomaaliyeed. Iqraa Cabdullaahi Raage, Iqraladan, Telefishinka Somali Cable, magaalada Istanbul, wadanka Turkiga. munaasabad lagu dabaaldegayay 1 Luulyo 58 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay ka xureebeen gumeystihii Talyaaniga isla markaasina ay midoobeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. faafahinta warkan waxaa magaaladaasi inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil. waa 58 guuradii ka soo wareegatay markii ay xornimada ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga gobolada koonfurta Soomaaliya isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya 1 Luulyo 1960. munaasabadan oo lagu qabtay xarunta Lamagalaay ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan, heer degmo iyo heer gobol, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle, saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwa Djibouti, Itoobiya, marti sharaf kala duwan. waxaana goobtaasi munaasabada gaartay ciyaar kala duwan ku soo bandhigay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan iyo ciidamada Djibouti oo munaasabadaasi ka qayb qaadanayay. waxaana aad u riyaaqay madaxdii goobta ku sugneed.
dhinaca kale munaasabadda waxaa ka qayb qaatay gawaarida dagaalka oo ay saarnaayeen hub noocyo kala duwan iskugu jiro kuwa Soomaaliya iyo Djibouti waxayna muujinayeen awoodda ciidan ee labada dal. ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay taliyayaasha ciidamada qaybta gobolka Hiiraan Soomaaliya iyo Djibouti Cabdiraxmaan Riyaale iyo Farax Kuushin waxayna ka hadleen ahmiyadda kowda luuliyo ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed. waa kowda luuliyo Soomaaliya oo dhan laga xusaa caalamka meel kasta ee Soomaalidu joogtana way xustaa waa maalin aad iyo aad Soomaalida ugu weyn waa maalin qiimo iyo qadarin mudan waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay ku soo baraarugto habeenkii waa maalintii calanka Soomaaliya la suray geyiga Soomaaliya Djibouti ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo taliyayaasha ciidankaba waxaan hambalyo gaar ah hambalyo weyn u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu horeeyo madaxweyne Farmaajo xukuumaddiisa. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Maalin Sufurow wuxuuna hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan. mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan salaan iyo bogaadin u marinayaa hawada dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta af Soomaaliya ku hadasha waxaan leeyahay maalintan qiimaha iyo qaayaha kule mujtamaca Soomaaliya ee maalintii Soomaaliya ay ku midowday calankan buluuga ee kowda luuliyo 26 waxay ahayd xilligii gobolada waqooyi kowda luuliyana waxa ku midoobay koonfurta iyo waqooyiga laakiin waxaan aad u jeclayn ma aha Soomaaliya in 27 inta maqan la helo 28 inta maqan la helo محمد عبد بادل Somali Cable TV magaalada Beledweyne. sidoo kale magaalada Jowhar ayaa si weyn loogu xusay munaasabadda xuska kowda luuliyo 58 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaasina ay midoobeen gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya. wariyaha telefishinka Somali Cable ugu soo warrama magaaladaasi Jowhar محمد إبراهيم جمعالي أيا وركان إنو صدري xuska kowda luuliyo ayaa si weyn loogu xusay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa ka soo qaybgalay dhalinyaro haween qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada Jowhar kan gobolka Shabeellaha Dhexe xildhibaanada Hirshabelle iyo golaha wasiirada Hirshabelle ayaa joogay kusimaha madaxweynaha ahna ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa goobta joogay saacadu waa 11:59 daqiiqo waxaa loo istaagay in la saaro calanka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa salaan sharaf ka qaatay calanka buluga xidigta shanta gees dhaxda ku leh
kasoo qayb gashay munaasabadda goobtana ka hadlay ayaa jeediyey hadalla qiimo leh oo hambalyo iyo guurama isugu jira. waxaan idin leeyahay xafladda caawa saan quruxda badan leh wax dadka soo agaasin maamulka waxaan idin leeyahay waajibkiina gudateen maaha mid laga mahad celinayo waxaa gudateen waajibkiina. waxaan rabnaa dhibaato badan ayaan ku soo jirnay in la iscafiyo qof walba ma hay joogto in dacwada ka soo qayb gasha munaasabadaas in la saamaxo qaas ahaan dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe waxaan rabaa inay is saamaxaan u duubtaan horumarinta dalkooda. isla qabsi waana soo noojiyo 30 sano ayaan ku jirnaa dhibaato maamayaal iscafiya aan gacanta isqabsano ciidamada iscafiya odayaasha iscafiya. waxaan leeyahay caawo hambalyo kowda luulyo sanadkan sanadkiisana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan halkan si ka fiican maaragtay aan u dabaaldegi doono haddii la yiraahdo insha Allah. dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo idin leeyahay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer Jowhar sida qiimaha iqaayaa leh oo soo qayb qaatay munaasabadan kowda luulyo. sidoo kale gudoomiyaasha afarta xaafadood aad idinka mahad celinaa. waxaan leeyahay dadaalkiina laba laaba sida gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada uu sheegay. waxaan leeyahay lagama laha degmada horumarkeeda lagama laha qof kasto haysto in laga lahayn niida gashato. hambalyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo. maanta waa maalin farxadeed oo looga duwan maalmaha kale. waxaan kala u hambalyayaa munaasabadan maanta dadka ka soo qayb galay. waxaa caawa aad iyo aad noogu weyn in aan isla wada xusno dhammaanteen ama kulligeen baan ka soo wada qayb qaadano sidii aan u weyneyn lahayn maalinta kowda luulyo taas oo ka soo wareegatay 48 guuradii maalintii midoobay labada gobol. taasna waxa weeye maalin walba dad baa noo soo dhiibay annagana maanta waxaan taagannahay inaan annaga ka qayb qaadano xusitaankeeda. 13 SYL waxaa wehelinayay gobol kastoo Soomaaliya waxaa joogay xubno ka tirsan ururka SYL oo guwaawe iyo wax badan sameyn jiray. sida gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa xafiis ugu furnaa jiray sidii inoo la sheegay tuulada la yiraahdo Geed Barkaan. waxaa xafiis ay ugu furneed ururka SYL. tuuladaas waxay ku taalaa gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar. war haddaan nahay reer Hirshabeelle ama dowlad goboleedka Hirshabeelle arrintaas diyaar ma u nahay? war midnimada Soomaaliya muqaddas ma naga tahay? war codka kor u dheereeya war midnimada muqaddas ma naga tahay? waa kaas mudane gudoomiye ma aqbalayno kala googo'id iyo kala qoqobid wixii wada hadala oo walaalahana ay tirsanayaan. waxaan qabnaa haddaan nahay shacbiga Hirshabeelle ka xukuumad ahaan iyo ka baarlamaanba in lagala hadlo laakiin midnimada Soomaaliya waa muqaddas waa lama taabtaan. meesha waxaa ka cad magaca qabiilku waa la isku aqoonsadaa laakiin horumarku waa Soomaalinimo. 58 sano kadib waxaad dareemi kartaa dalka Soomaaliya meesha uu joogo waxa dhigayna waa qabiil. hambalyo kowda luulyo hambalyo Soomaaliya ha guulaysato. gudoomiyaha degmada saraakiisha dhammaan intii isu soo xilqaantay munaasabadan qiimaha iyo qaayaha Soomaaliya ugu fadhida waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba waxaan leeyahay hambalyo. walaalayaal marwooyin caawa farxad weyn bay noo tahay reerayn bay noo tahay waa maalintii qiimaha badnayd ee xusuusta badnayd ee aan ilaawi karin kowdii luulyo ee midaysay waqooyiga galbeed gobolada waqooyi galbeed iyo koonfurta xorriyaddii lagu qaatay calanka Soomaaliya gumaysigii caddaanka ahaa
meeshaan laga wareegay xilka laga wareegay halkaasna dowlad loo hamuun qabay ee Soomaaliya halka ka curatay Soomaali meel kasta joogtay farxad in ku dhaloosho ay ku jirtay waayo caawo kala taxuskay sidaas weeye Maxamed Ibrahim Jimcaale Somali Cable TV Jowhar weli daawadayaal waxaad la socotaan wararka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Caabud Waaq ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina lagu dabaaldegayay xuska kowda Luulyo wariyahayaga magaalada Caabud Waaq Mahad Bashiir Cismaan ayaa warkaan inoo soo diray waa maalinta xorriyadda Soomaaliya oo ay gobolada koonfureed ay qaateen xorriyadooda ayna midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur waa maalin ku weyn qulubta bulshada Soomaaliyeed dhaqaaq bilowgi dhammaan 13kii ka dhiigay gumaysiga soo dhiciyay calankeena dhalinyarada weeyaan waa munaasabad ay isku soo baxeen boqolaal ka mid ah bulshada magaalada Caabud Waaq caawana lagu qabtay hoolka weyn ee shirarka ee Hotel Salaam ee degmada Caabud Waaq munaasabadan oo lagu xusaayay sanad guuradii 58 ee ka soo wareegtay markii ay gobolada koonfureed ay qaateen xorriyadooda bulshadu qalbiyadooda waxaad ka dheehanaysaa farxad iyo reereyn waana kuwa aad ka dareemaysid inay caawa qiimo weyn ugu fadhido Mahad Cumar Cilmi waa gudoomiyaha degmada Caabud Waaq wuxuu caawa dareenkiisa si qurux badan ula wadaagay bulshadii ka soo qayb gashay goobta asagoona ka sheekeeyay halgankii xorriyadda ee Soomaaliya waxay leeyihiin qof kasta oo Soomaaliyeed ku jirto inuu dadkaas halgamayaalka u weydiiyo Ilaahay cafis u weydiiyo inta ka dambaysana ay noqoto inta Soomaaliya qof ka nooleeyay arrin had iyo jeer la nooleeyo oo cidii markaa joogtay ay xil iska saarto inay xuskaas kor qaado sababtoo ah way haddii aan la nooleeynin jiil beddelaya wax yar baana waxay noqonayaan dadka waxoog dhalinyaradii abwaanintii iyo wiliba fanaaniintii ka soo qayb gashay caawa kulankani ma ahayn kuwo caawa la dhayalsan karay asagoona qof walba qalbigiisu caawa ay ka soo maaxanayeen wadaniyad iyo wiliba hadallo aad u qiiro galiyay bulshadii ka soo qayb gashay aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta inaan isku laabfiyoonahay nabadii xasiloonina haysano waxaan kale oo hambaleynayaa dhammaan Soomaali weynta caawa tuqasayso kowda Luulyo runtii waxay ku dhalatay 26 Juun oo ay qaateen gobolada waqooyi markay qaateen ay ka qaateen Ingiriiska baa anagana kowda Luulyo gobolada koonfureed baa qaatay oo ay ka qaateen Talyaaniga waxayna ahayd maawinkii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfureed runtii waqooyina hadda waa ogtihiin waa wadan rabo inuu gooni isku taago laakiin markii hore in la midoobo oo la isku darsamo wixii ka talinayay oo u doodayay inta badan ka fikiraya waxay ahaayeen waqooyi nahay halgamayaashii SYL ma gablamin ayagoo da'yara xorriyadda raadiyay ma gablamin waxay ka tageen kuwa caawa fagaaraha taaganu in ay noqdaan kuwa taariikhdii hore oo haddaba la xusaayo mideeda labaad loo xusi doono haddii alla ilmo inay noqdaan baan rajaynaya calankan arkaysi haddaan waxay rafaalayaasay laftigiisa calankan wuxuu ka turjumayaa shanta Soomaaliya qofkaas waxaa laga yaabaa inuu inta badan fahansanayn laakiin waa Djibouti waqooyi koonfur Soomaali galbeed liga u taqaaniin Kilfay iyo NFD shantaasi ahayeen hadalkii mabaadi'da la qaatay oo la qaatay calankan wuxuu ahaa in la midayo la isku keeno yeeshaana hal calan gobaaday hasheenni idinkoo hurdada galay busta gab isku siiyo gabadanada dayreed ka gabanaya dhaxantoo geed hoosti galay oo garka labada low iyo gaadhada isdhaafsaday sow lagama goyn oo sow lalama guurayn intaan garashadaydiiyo sooyaal gadowsaday sow guray ma dabagelin intii geyfanaan iyo garashada ku raacdaba wuxuu dabagucleeyaba gaajiyo kulayl iyo wuxuu oon la golongolo wuxuu gaala laayaba wuxuu geed xun hariyaba wuxuu gacan sarreeyaba waxay guushu raacdaba waqtigaa ku gaabsho gobaad muuna soo celin wasiir ku-xigeenka amniga Mahad Xasan Maxamed iyo waliba wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga wasiir Cali Yare oo ayaguna kulanka ka soo qayb galay ayaa dareenkooda cabiray waxayna ka warbixiyeen ahmiyadda ay leedahay caawo kale waa farxad weyn oo Ilaahay nagu manaystay
waa 58 guuradii ka soo wareegtay maalintii aan xorriyadda qaadanay oo maanta ku beegan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay hambalyo 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 waxay tahay waxaa la rabaa xorriyaddu waxay ahayd rag baa u soo halgamay u soo dhintay waxaan ku naaloonaynaa oo hadda aan joognaana waa rag dhigiis marka jiilkan maanta jooga yaa la rabaa inay ka faa'iideystaan markii ay ku dhacday 6dii habeenimo ama 12 habeenimo ee 6 saac ayaa waxaa la saaray calankii buluug ahaa ee xidigta shanta gees ku calaamadayeen ee horey loo yeeray sareeyo manusqaame kana saar kana siib ayadoona goobta askartu ay salaan sharaf ku siiyeen calanka buluuga ah ee qiimaha weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed ayaa caawo kale ay aad ugu weyn tahay ayadoona laga xusay degmooyin iyo waliba gobollo badan oo kamid ah dalka waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Ilkaase telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable wararka waqooyi Galgaduud Caabud Waaq halka wararkaasi daawadayaal aad kala socotaan waa xafiiska wararka telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho ka hor inta aanan ka bixin aan idiin soo gudbino warar kale oo ka baxsan Soomaalida isla markaasina la xiriira caalamka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay hakinayso dagaalada ka dhanka Xuutiyiinta Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ahaa isbahaysiga taageerayay dowladda Yemen markii ay qabsadeen magaalada Hoodia wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Mr Anwar Gardash ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku daabacay in xabad joojintan looga gol leeyahay in ay meel maraan dadaalada wada hadallada nabadeed ee ay wado qaramada midoobay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Martinia ayaa kulamo la yeelanayay dhinacyada isku haya dalka si loo joojiyo dagaalka Mr Gardash waxa kale uu sheegay in ay soo dhaweynayaan dadaalada lagu doonayo in xoogaga Xuutiyiinta looga saaro magaalada Hoodia in ka badan 14 qof ayaa ku dhimatay tiro inta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani ayaa saacado ka hor inta uusan qaraxa dhicin booqday magaaladaasi Jalalabad sargaal sare oo ka tirsan gobolka ayaa sheegay in 8 ka mid ah dadka qaraxaasi ku dhintay in ay ahaayeen xubno ka tirsan Hinduuga laga tirada badan yahay oo doonayay in ay soo dhaweeyaan Mr Gandhi qaraxani ka dhacay magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii dowladda dalkaasi ay bilowday howlgal ka dhan ah mintidiinta ugu dambeyntiina madaxda qaaradda Afrika ayaa maanta ku shiray magaalada Nouakchott ee dalka Mauritania waxaana lagu wadaa in ay ka wada hadlaan arrimo la xiriira ganacsiga xurta ah iyo xasiloonada qaaradda Afrika kulanka hogaamiyaasha midowga Afrika ayaa sidoo kale ujeedkiisu waxa uu yahay in la joojiyo hubka Afrika loo soo dhoofinayo marka la gaaro sanadka 2020 madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale loo balansan yahay in uu la kulmo hogaamiyaasha 5 wadan oo galbeedka Afrika ah kuwaasi oo dhistay ciidamo isku dhaf ah oo loo yaqaano G5 Sahel ciidamada G5 ayaa 4 sano ka hor waxa loo aasaasay inay la dagaalamaan kooxaha xagjirka ah iyo tahriibka sharci darrada ah gudaha daawadayaal wararkii aad kala socoteen telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanayay xafiiska wararka telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa talinta ku kulmi doona warkan kan xiga waa anigu Cabdulqaadir Umar Cabdulle iyo dhamaan wariyaashii wararka igala qayb galay oo idinku dhaafay waad ku mahadsantiin daawashadiina haboon cidii warkeena uu sheegayna waxay dib kaga heli karaan bogagga internetka aan ku leenahay sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo boggeena website-ka ee somalicable.tv